kolley waxaan filahayaa ninkii dagaalka riday dan gooni buu lahay qawaarij iyo wax dabada ugu jiri ma naqaano qawaarij baa ka adeegaysa meeshaas waana garanaynaa oo daliyada dadkaas waana garanaynaa waxaan soo jeedinayaa dagaalka in la joojiyo. wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegaya in maanta dagaal qaraar uu dib uga qarxay degmada Luuq ee gobolkaasi kaasi oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo dhawaanahan ay colaad ay ka dhex taagneyd oo halkaasi ku dagaalamayay. dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa la warinayaa in saaka uu ka qarxay aaga birta Saladley oo qiyaastii 4 kiiloomitir u jirta degmada Luuq ee gobolka Gado sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka aan xiriir la sameynay. labada dhinac ayaa isu adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalka uu saameyn uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee magaaladaasi iyo waliba dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga. wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalku uu daba socday mid ka horeeyay oo shalay gelinkii dambe ka dhacay gudaha degmada Luuq kaasi oo ka dhex qarxay labada maleeshiya beeleed ee horay halkaasi ugu dagaalamay kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan ilaa iyo 2 qof ayna ku dhaawacmeen 5 kale sida ay xaqiijinayaan ila xogaal ah oo ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gado. xaaladda ayaa ah mid wali kacsan labada beelood ayaana la sheegayaa in ciidamo gurmad ah ay labada dhinac helayaan taasi oo xaaladda uga sii daraysa xiisadana sii xumeynaysa. maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa waxaa horay heshiis u kala dhex dhigay madaxweynaha dowladda Jubbaland balse waxaa ku yimid fashil iyadoo oo mar kale uu dib u bilowday dagaalka xabaduna ay qoriga afkiisa ka baxday dadna ay dhinteen. gobolka Gado ayaa waxaa ka jira xaalado adag waxaana gobolka ka taagan xiisado kala duwan oo u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland. war hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in mid ka mid ah maleeshiyaadka dagaalamaya ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo Neefsoy oo aan ka fogeyn degmada Luuq ee gobolka Gado ayna gubeen guryo iyo waliba goobo ganacsi oo halkaasi ku yaalay. ugaaska guud ee beesha sida ugaas Maxamed Yarow ayaa isagana baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada Luuq wuxuuna ugu baaqay inay xabadda si degdeg ah ay ku joojiyaan la isuguna yimaado miiska wada hadalka oo wax walba lagu dhameeyo wada hadal iyo nabad. dhowr jeer hore ayay sidoo kale beelaha walaalaha ay wada degmada Luuq ay ugu dagaalameen. wixii warar ay ka soo kordho qodobkani waxaad kala socon doontaan Rasmi Radio. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay oo ku cusub tahay barahayaga bulshada ku soo biir oo channelka subscribe noo saar barnaamijkana noo like garee oo noo share garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanid.